kulanti wacan mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. In muddo waan maqnaa oo waxba ma soo gelin channelka. Muuqaaladii hore way ku jireen dad fara badan way ka faa'iideysanayeen. Muuqaalada cusubna mayna soo gelin ilaa iyo muddo bil markaasi ku dhawaada. Dhammaan daawadayaasha sharafta leh kanaalkan ku xidhan aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa muddada aanan waxba soo gelinin. Waxa aan dib u bilaabi doonaa oo markaasi aan joogtin doonaa muuqaaladii iyo maaragtay casharadii aan soo gelin jirnay kanaalkan ku saabsan dhinaca teknolojiyadda smartphones iyo kombiyuutarada intaba. Muuqaalkan waxa aan wadaa oo markaasi aan ku sharaxi doonaa KineMaster application-ka la yiraahdo ee cusub markaasi update-kii ugu dambeeyay ee la soo sameeyay bishan July hadda ka soo gudubnay. Application-kani waa application haddii la yiraahdo sharaxaad guud ka bixi aan la dhameyn karahayn. Application-kani ugu horreyn waa application-ka ugu wanaagsan dhinaca muuqaal samaynta, muuqaal hagaajinta marka la adeegsanayo smartphone-ka ama mobilada la adeegsanayo. Way jiraan application fara badan oo lagu sameeyo muuqaalada ama lagu markaasi hagaajiyo balse laakiin waxa jira waxyaabo dheeraad ah ama awoodo dheeraad ah oo application-nada kale dheer yahay. Qof kasta oo maanta mobile muuqaal ku sameeya ama mobile muuqaal ku hagaajiya inta badan 90% hadii la eego waxa uu adeegsanayaa KineMaster sababo jira awgood. Application-nada kale ee markaasi tirada badan ee jira muuqaalada lagu hagaajiyo waxyaabo fara badan oo la soo koobi karayn ayaa markaasi KineMaster uu kaga sareeyaa application-nada kale. Haddaba muuqaalkan waxaan kugu sharaxi doonaa update-ka cusub ee bishan la soo saaray ee markaasi KineMaster waxyaabaha lagu soo kordhiyay markaasi waxyaabaha laga hagaajiyay iyo markaasi waxyaabo fara badan oo ay kaga duwan tahay application-nada kale oo aad markaasi u dooran karto. Application-kan KineMaster version-ka hadda kaaga muuqda shashadeeda arkayso waa version-kii ugu dambeeyay ee la soo saaray. Waxaa jiray markaasi bilooyinkii la soo dhaafay cilado aad iyo aad u tiro badan oo laga cabanayay markaasi KineMaster ku saabsanaa. Ciladaha waxaa kamid ah dhanka exporting-ka ama marka aad muuqaalka export garanayso marka aad dhamayso in markaa uu diidayo ama waxyaabo fara badan oo ku sheegayo oo markaasi aad ula dhibtoonayso. Sidoo kale assets-ka ama markaasi waxyaabaha loo adeegsanayo muuqaalka in dhamaantood markaasi aysan wada fasaxnayn oo qaarkood cilado fara badan ay ku jiraan sida textiyada, effects-ka, transitions-ka waxyaabahaas oo dhan. Waxaas oo dhan waa la xaliyay waa laga wada hagaajiyay dhamaantoodna si sax ah iyo hadda u shaqeynayaan. Waxyaabo fara badan oo lagu soo kordhiyay ayaa jira. Tusaale ahaan hadda imika hadii aan eegno dhinacan transitions-ka, graphics-ka, textiga, effects-ka, sounds-ka, music-ka waxyaabahaas oo dhan waa la wada update gareeyay wax cusub ayaa lagu soo daray oo markaasi hore aadan u aqoonin. Application-kan haddaba hadii markaa aan sharaxaad yar idinka siiyo ama sharaxaad yar daawadaha sharafta leh oo aan kaaga bixiyo application-kani waxa uu leeyahay waxyaabo fara badan ama awoodo dheeraad ah oo application-nada kale uu dheer yahay. Waxa ugu horeeya oo number 1 markaasi aan ka soo qadan doonaa layers waxa layers-ka la yiraahdo. Ugu horeynba hadii aad muuqaal habeynayso ama muuqaal aad hagaajinayso waxyaabaha ay qasab ka tahay in markaasi software-ka ama application-ka aad wax ku hagaajinayso uu leeyahay ayaa ah layers. Layer-ku waxa weeyaan in muuqaalka aad sameynayso ama muuqaalkaasi aad habeynayso in aad soo duldhigi karto wax kale muuqaal kale ama markaasi stickers ama sawirro ama waxyaabahaasi aad soo dul gelin karto oo dheeraado oo aan muuqaalka ku jirin markaasi si extra-na uga soo dhex muuqan kara muuqaalka. Waxaas ayaa layers la yiraahdaa. Inta badan application-nada kale layers-ku waa ay ku yar yihiin haba markaasi KineMaster waxa ugu soo dhow ama ugu soo sokeeya Power Director oo isaguna sida KineMaster oo kala balse laakiin ay aad iyo aad uga wanaagsan tahay waxyaabo fara badan ay kaga wanaagsan tahay. Waxyaabaha markaasi ugu horeeya aad ku dooran karto KineMaster ayaa ah in ay leedahay layers-kaasina ay aad iyo aad u tiro badan yihiin aad markaasi inta aad doonto markaasi aad u adeegsan karto muuqaalka aad hagaajinayso. waxyaabaha kale markaas ay application-nada kale KineMaster-kan markaas ay dheertay waxa kamid ah waxa loo yaqaano keyframe waxa weeyaan
in markaasi muuqaalka aad markaasi si accessible aad u adeegsan karto. Tusaale ahaan muuqaalka waa aan sameynaya ama muuqaalkan aan wado markaasi aan hagaajinayo laba dhexda ayaan ku kala jari karaa, kadibna muuqaalkaas rotation baan ku sameyn karaa ama dhaqdhaqaaq ayaan ku sameyn karaa oo markaasi dhaqdhaqaaqyo saayida uusan awal hore lahayn ayaan ku soo dari karaa. keyframeka kaas ayaa loo yaqaanaa. applicationada kalena ma laha badankoodu oo mid ku shaqeeya ma jiro. sidaas darteed waa waxyaabaha applicationada kale kaga wanaagsan tahay KineMaster. sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale haddii aan saddexaad kaga soo dhigno waxaa jira waxa loo yaqaano Chroma Key. Chroma Key waxa weeyaan markaasi tool aad u adeegsan karto muuqaalada dhinaca dambe green screen-ka ama blue screen-ka aad u adeegsan karto oo aad background-ka kaga saari karto. applicationada kale markaasi iska yaryariska muuqaal hagaajinta loo adeegsadaa ma laha badankoodu. KineMaster iyo Power Director ayaa ugu soo sokeeya oo kuwa leh. marka Chroma Key waxaad u adeegsan kartaa in muuqaalada aad kaga jari karto dhinaca dambe green screen-ka ama blue screen-ka aad kaga jari karto, dan muuqaalka aad markaasi transparent ka dhigto, aad meel kale dhex geyn karto. Chroma Key midaas ayaa markaasi awood ay u leedahay. halkan kuma soo koobi karno waxyaabaha faraha badan ee applicationada kala dheertahay, laakiin intaasi waa qodobada markaa ugu waaweyn ee aad u adeegsan karto KineMaster. applicationada kalena markaasi ay kaga dheertahay ama markaasi aad kaga dooran karto. haddaba application waa la xaliyay ciladihii iyo markaasi dhibaatooyinkii dhammaan ay markaasi dadka isticmaalayaashu ay ku qabeen exporting haddii ahaato dhinacii assets haddii ahaato markaasi waxyaabahaas oo dhan. iminka haddii aad KineMaster istiraahdo si direct iyo mobilkaaga ugu shubo oo Play Store kaga soo shubo haddii aad istiraahdo ama App Store kaga soo shubo haddii aad istiraahdo, waxaa jira in ay markaasi lacag ku weydiinayso oo inaad purchase gareysato ay doonayaan. haddiiba taasi lafteedu aysan dhacayna ay markaasi la socoto calaamad watermark ama markaasi loogada yar ee KineMaster ay leedahay oo muuqaal walba oo aad ku hagaajiso aan ka harayn oo markaasi la soconaysa. waxaas oo dhan waa ay ka xalisan tahay midaan hadda wado. waa premium, waa full unlocked weeyaan. wax markaasi ciladaha oo ku jirto oo kala kulmi kartaa ba yaraatee ma jiraan. waxyaabo fara badan oo markaasi awal hore aan la soconna waa lagu soo kordhiyay. sida tusaale ahaan haddii makaan eegno rationiska ama markaasi cabirada muuqaaladooda ay yeelanayaan waa la soo tirabadiyay. 3 midhow kaliya ay awal hore ahaayeen, hadda xogaa ayaa laga soo dhigay. sidoo kale waxaa jira ready projects diyaarsan oo markaasi aad wax uun ka badbedelayso oo editable. waxa aad ka bedeli kartaa qoraalada, sawirada, muuqaalka waxa ku jira aad ka bedeli kartaa sawir diyaarsan yahay oo markaasi diyaarintii faraha badnayd ee waqtiga badan ka galiyay ayaasan ka galin. markaasi waxyaabaha hadda lagu soo kordhiyay ayaa markaasi ay ka mid tahay. sidoo kale qaybta markaasi home screen-ka ama qaybtan hore ee wajahadan hore aad ayaa loo design gareeyay, loo qurxiyay. sidii horena markaasi way ka duwan tahay. adiga ayaaba jeclaanaya marka aad doonayso inaad muuqaal ku hagaajiso ama muuqaal markaasi aad ku sameyso. haddaba application-kan waa application aad iyo aad u casriyaysan, la update gareeyay, si qurux badan loo soo habeeyay. waa premium oo full unlocked, wax watermark ma laha, wax cilada ma laha, waa nadiif weeyaan. application-kan waxaa markaasi aan ku dhigi doonaa qaybta hoose description-ka, halkaas aad markaasi kala degi doontaa isagoo markaasi premium full unlocked ah oo markaasi wax cilada haba yaraatee aadan ka arkahayn oo nadiifa. halka hoose ku dhigay halkaas aad kala degi doontaa. inta wixii ka dambeeyana muuqaalada waa aan soo laba jibaari doonaa. halkan ayaan kasii wadi doonaa habsantii iyo muuqaal dibadhici wixii faraha badnaana. marka waa aan ka diin doonaa waxyaabo cusubna insha Allah channelka waa aan kusoo kordhin doonaa. tan iyo muuqaalkan dambe markaasi intaan isugu iman doono nabadeed.